madaxdii waxa jooga qaran Toronto dhan baa jooga raggaan arkaysid wajigooda waa wada garanaysa Soomaaliya in yar istaqaana waa ragii madaxda ahaan jiro dalka madaxda ka ahaan jiray weeye ragii wax ku oolka ah weeye gabdhii wax ku oolka ah weeye waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasiirka arrimaha dibadda xaaskiisa waxay markaa Washington ugu tagnay way soo dhaweysay way xurmaysay way sukaaya sheegtay aniguna caawa halkaas gacanta soo qabtay soo dhaweeyay waxa iskeenin abaal iska dhig aad baan iyadoo ugu mahadnaqayna waan ku faraxsanahay maadka inoo timid oo nidhi dhammaantiina mar labaad waa idin mahadnaqayaa xurmada aad soo xurmayseen wasiirka aad soo xurmayseen yeeristanadii aad aqbasheen ilaahay idinka ajirsiyo waana mahadsantiin dhammaantiin ناصر أديانا وما سنتهي إن جدي أو كهذا لي حجاير تاريخي يروحها دان أو حجر عن كتابته جدي وحو كقوم على لبا organization عمل لبا جدي اسكو يمي والله الذي الله يراه الصومالي National Congress أو حبين كأحيان على ناصر نكلي يراه عبد يرى محمد جلعو نكلي يراه عبد الرحمن حوش iyo guddi kale oo gabdhihii batuulo iyo khatra iyo you name it waa badantiin qaal ahaad hadda madin ka tagay waris magacada dabla bahra la gala maqti iyo guddi kale oo asna nolol topic oo ka shaqeeyo leeyahay Horn of Africa kadib markii dawladii Djibouti la isku tagay oo labadii qolooyinkii maxaakiimta ahaa iyo dawladii ku meel gaarka ahaa ee isku imaadan ay dawlad sameysteen ayaan anaka inta isku nimidaan dawladda samaysan oo liira Somali Toronto community marka waa initiative wanaagsan ee waxaan jecelnahay marka soo dhawo mudane Abdulwahid مدن أحمد محمد حسن مروة لكي حاج حسن يو دمان انتي نعاو حفلة عن كسوق يبقشل وسود وين هي وزير كنا محوها عبد الواحد وحنجعلها إن المركه رعد كي يكوبيريو انتي هذا السي جودك سوق مقابية حفلة عن وزير كل وسود وين هي iyo sida quruxda badan iyo abaabuleen ee qaybta wanaagsan ee xurmada leh haweenka ka siiyana iyagoo safka hore si waagi hore xoga gadaal baan loo jiray shirgudoonkana wax laga siiyay awal ayaga isku qabalaaxin jiray kalgood marka intaas markaan ka gabo horta la isku keenay ma in la yiraahdo haweenna waa u hadlaysaa 5 daqiiqana waa leedahay 10 ninna waa ka dambeyn doonaa shaqada waa ka horeysa marka laakiin aan bal u daayaday ku hungurxeen microphone garagu yaana ka dhamaysan warka mudana waxa weeye anigu waxaan ku hadlayaa magaca haweenka Soomaaliyeed Toronto gaar ahaan kuwa caawa xafladan joogay soo bilay ayaan ku hadlayaa dadku waxay isweydiinayaan war haweenkan maxaa wada war maxay ta mashcarada iyo alalaaskan iyo waxaan ka yeeray maxaa gabdhahan kicinayo caawa meeshan keenay ma wasiirka caashaqeelo istusaya may waxay u yimaadeen waxay dareensan yihiin dibka ummadda Soomaaliyeed haysta oo dibkaas ayagana halkan ku haysta oo kuwii xagga joogo haweenka ahaana ay dhibaataysan yihiin shacbiga Soomaaliyeed ayaguna ay halkan nolol wanaagsan ay ku haysteen magangelyo waa hayseen oo Ilaahay aamanahu min khawfin wa juu'in Ilaahay taa waa naga nabadgeliyay laakiin nolol wanaagsan kuma haysano dawladnimo nabadeenu ku jirnaa anigu waxaan ka mid ahaa intii u bogtay Shariif Ahmed min markii uu muxuu ahaa ka madax ahaa maxkamadaha Muqdisho oo bishii July 2006 kii Amerikaanka Institute of Peace ay abaabuleen shir aqoon-yahan ayay noo yeereen qolaan anigu ku jiro nala yiri naga warrama wadaadadan xagee wax u wadaan maxaad ka qabtaan waxaan u wada sheegnay in wadaadada aan laga dayrin inay wadaadadu wadaada waa yihiin laakiin waxa isku jiraan oo qaar qunyar socodha ku jira in chance la siiyo amxaarana wadanka aan loo ogolaan nala kama yeelin taladeennii amxaara wadankii la keenay burbur baa la keenay
kadib bay hadda ku soo noqdeen shariifkii aan barigii lahayn intuu hadduu dadkiisii haystaa hadduu fursad wanaagsan si fursadahan lama siin maanta waxaa noo muuqata inaan la siinin kaalintuu u baahnaa inuu adduunku diray oo u dhiibay dab iyo dhibaato yaa ka saari kara kama filahayo Ugandesi nagama saari karaan annaga iska saari karna shacabka Soomaaliyeed baa iska saari kara shacabka Soomaaliyeed qolo maanta la muslimiin haya ma aha waligayaan muslimin hayn Afrikana diinta islaamka ku faafin waxaan u baahanahay dawlad qoyar socod ah adduunka afgarata ummadeeda u naxda u turta ummadeeda raadisan nabad iyo waan inay wax ku keento inay ku dadaasho intii tabarteeda iyagoo la tiirsanahay ummadaha islaamka kale in inta tan wareersan la yiraahdo kaalaya ka soo qayb gala gogosha nabadaan uu shariifku wado ka soo qayb gala hadday ka soo qayb galiyeen shacabka Soomaaliyeed ay u taala meel uu joogaba inay hiil iyo hooba shariifka siiyaan annaguna intaasaan ku taageeraynaa barnaamijka ما سند عليجي فاضمو أحمد عالم حدنا وحان ويريا نين عضيو اللي عبد النور ديرية عبد النور ديرية سولو عبد النور حرسي ديري عبد النور ديرية دي كان يعني والدمتاتا وقعنا سعيد وما تنتهي مقع علي يقال نوعان كحينا يقول يرتاحي اوكي عبد النور ديري او جامع علي هذا دبتاتي horta barnaamijkan aniga kuma talagalin inaan ka hadlo si sudfa ah oo aan maartay baa la igu soo qoray waxaan ka hadli doonaa hadii la yiraahdo youth dhalinyarada marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa wasiirka iyo xildhibaanka si dadka horeba iga horeeyay yiraahdeen reer Toronto waxay caado u yeesheen markasta in ay dawladda dhalataba taageeraan taasna waxay ku leeyihiin credit aad u wanaagsan run ahaantii anigu waxaan ahay dadka Canada degan baa kamid ahay dhalinyarada baan tababaraa oo kubadda kolayga dad badan oo sports ana caawa waa joogaan halkan waxa la iisiyay marka halkan ma garanayo run ahaantii annaga dhalinyaradeena jaalwasiir xabsigay ka buuxaan hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa inta badan dhibaatada ku dhacda community-yaalka Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo ilaa 25 community ayaa ka furan meesha wax ay u qabtaan youth-ka مشي كانوا عاورون تاني نشيء يقولين community ناصر عبد الله iyo عاورون runtii dayanaysa dhalinyarada in wax loo qabto weeye magacooda ku furateen community-yaalka Soomaaliyeed sportiga Soomaaliyeed dhan baa hadda baaba'san sportiga Soomaaliyeed waxa saamigiisii qaatay Afrika saa la socotaan Olombikada Soomaaliyeed waxa weeye niman dhowr ah oo isku ordaya oo dawlad iyo wax ka dambaysa aysan jirin ayaa lacagahoodii waxa cunaa Afrika iyo FIFA iyo AFAPA waxa soo dhan baa wada cuna waxaan rabnaa marka inay ogaatid jaalwasiir dawladda aad mas'uulka ka tahay in sports ku yahay xubin aad muhiim ah oo firfircoon oo runtii aan naqaano kacanka Soomaaliyeed sida uu u hormariyay oo horumar culus ka gaarsiiyay sportska qaar badanna magacyo loo soo jiideen waliba international oo aad u wanaagsan sportska run ahaantii Olombikada iyo muxuu hadii ilaahay ku ran yahay iyo wasaaradda laba kala ahaayeen